nabad wacan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal kale oo xiiso badan idinkagana imaanaya Alkownayn Media. Waxaa iska cad in qof kastaahi u jecel yahay inuu noqdo qofka ugu taajirsan caalamka, sababtana waxaa lagu sheegi karaa inay tahay dabeecadda ku abuuran bini'aadamka, taasi oo ah inay jecel yihiin ku raaxaysiga wax kasta oo caalamka yaalla. Taasise waa mid ka hor imaanaysa sunnooyinka kowniga ah oo ma jiro qof kasta oo heli kara wax kasta. Xitaa qoysaska Rothschild, Sheldis, Bezos, Musk iyo Bill Gates adduunka kama heli karaan wax kasta. hagaag marka aynu sidaa leenahay, waxaa qasab ah inaynu soo reebno tubankan qoys ee reer boqor. iyaga waxa ay ku sharafoobeen hantidooda faraha badan iyo awooddooda siyaasadeed oo wada socda, waana tubanka qoys ee ugu saamaynta badan caalamka aynu ku noolnahay. tubankan qoys ee reer boqor waa kuwa ugu taajirsan caalamka xilligan. lambarka 10aad waxaa soo gelaya qoyska boqortooyada Liechtenstein. haddii aadan mar uun booqan dalalka Austria ama Switzerland, waxaa kugu adkaan doonto inaad maamulka yar ee Liechtenstein ka hesho khariidada caalamka. Liechtenstein waxa ay caalamka kaga fadhidaa dhul aad u yar, ballaciisu waxa uu gaarayaa 5 mayl halka dhirirkiisu uu yahay 16 mayl. waxaa isaga gudba webiga loo yaqaano Rhine oo maro bartanka buuraha Albi. waddankuna waxa uu ku yaalaa isla bartanka buurahan Albi oo u dhexeeya dalalka Switzerland iyo Austria. waddankan yar waxa uu ka mid yahay waddamada caalamka ugu taajirsan, sidoo kale madaxdiisa ayaa iyana ka mid ah madaxda caalamka ugu lacagta badan. qoyska maamula Liechtenstein waxa ay ka mid yihiin qoysaska ugu taajirsan keliya Yurub maahan ee waa caalamka oo dhan. waxa ay maamulaan hanti lagu qiyaasay 4.4 bilyan oo dollar. hantida badankeed waxa ay ku jirtaa gacanta Johann Adamka labaad ee Liechtenstein oo ah boqorka boqortooyadan aadka u yar. faa'iidooyinka tirada badan ee qoysku ay ka heleen madaxtinimada dalkan yarna waxaa kow ka ah waa inaysan bixin canshuurta faraha badan ee dowladda ka qaadi lahayd bangiga LGT oo qoysku leeyahay. kaalinta 9aad waa qoyska reer Maktoum. reer Maktoum waa qoyska muddo 2 qarni ah maamulayay magaalada Dubai ee caasimadda dalka Imaaraadka. muddadii ay shaqadan wadeenna waxa ay dhulka saxaraha ah u beddeleen jannada taajiriinta. muddadii uu isbeddelkani socday, qoysku waxa ay faa'iideen hanti adduun oo gaaraysa 19 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. shakhsiga ugu taajirsan qoyskani waa maamulaha qoyska isla markaana ah maamulaha magaalada Dubai, Al-Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. hantidiisu waa mid xilli kasta labanlaabanta marka la eego xirfadihiisa ganacsi. sidoo kale wadaadku waxa uu si fiican u garanayaa qaabka hantida loogu baashaalo. marka la eego wiilkiisana, waa geed walba dheecaankiisa ayuu dhalaa. Hamdan bin Mohammed bin Rashid waxa uu haystaa koox gawaari ah oo laga farsameeyey dahab iyo mootooyinka gaarka ah, inkastoo kuwani aysan ahayn gawaarida ugu raaxada badan. haddana garaashka Hamdan waxaa laga helayaa raxan gawaari ah oo aad u qaali ah, kuwaasi oo loo farsameeyey in loogu xarakoodo goobaha dalxiiska ee ku yaala magaalada Dubai iyo agagaarkeeda sida saxaraha. kaalinta 8aad waa qoyska Culwiye ee dalka Morocco. waana mid ka mid ah qoysaska ugu taariikhda fog ee haatan arrimiya. laga soo bilaabo qarnigii 13aad ayay ka talinayeen dalka Morocco, waa wakhti gaaraya 500 oo sano. qoyskan ka kooban 19 qof. shaqadani waxa ay u ahayd mid faa'iido badan, waxa ayna ka heleen adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan oo dollar. shakhsiga ugu hantida badani waa boqorka dalkan, kaasi oo marka la eego mashaariicdiisa ganacsi iyo shaqooyinka kale ee uu gacanta ku hayo, mushaarkiisa sannadlaha ah uu gaarayo $5 milyan Maraykanka ah. miisaaniyadda qasriga boqortooyada ee bilaha waa adduun gaaraya $500,000. boqorada caalamka waxa ay ku kaaftoomeen hal qasri, balse boqor Mohamedka afaraad waxa uu leeyahay 12 qasri oo ku kala yaala daafaha dunida. mid kastaahina waxaa ku baxa adduun lacageed oo gaaraya 500,000 oo dollar. kaalinta 7aad waxaa soo gelaya qoyska boqortooyada Boolkiya ee Brunei. muddo 800 oo sano ah ayuu qoyskani maamulayay dalka Brunei, inkasta oo uu muddo kooban soo dhex galay gumayste. qoyskani waxa ay qabteen shaqo aad u adag, balse maahan shaqo dalkooda ay u qabteen ee waa shaqo ay u qabteen naftooda. waxa ay tacbadeen hanti adduun oo gaaraysa 30 milyan oo dollar. waxaa halkan lagaga dhaqmaa wax kasta oo ka baxsan baahida aadamaha. ma jiro qof dadka ka mid ah oo lacag gaarisa 21,000 oo dollarka Maraykanka ah ku bixin lahaa jarista timihiisa. balse boqorkani waxa uu ka helaa inuu lacagtaas iyo ka badanba ku bixiyo jarista timihiisa iyo adeegyo kale oo fudud.
boqorka Brunei waxa uu leeyahay diyaarad gaar ah oo qiimaheedu yahay 4 bilyan oo dollar. Diyaaradani waxaa lagu xardhay dahab qiimihiisu gaarayo 120 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Qarashyadani waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa xad dhaaf ah, balse qofka ay ilbiriqsi kasta soo gasho 147 dollar waxa uu arki karaa wax yar. Kaasina waa Xasan Balokiya, boqorka boqortooyada Brunei. Kaalinta 6aad waxaa haysta qoyska boqortooyada Adwilyaj oo ka arrimiya dalka Thailand. Qoyskan waxaa hogaamiya boqor Moha Vajiralongkorn. Hantida qoyskan waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayso 60 milyan oo dollar. Badanka hantidooda waa mid laga keenay xafiiska boqortooyada Thailand. qoyskani waxa uu ahaa mid laga jecel yahay guud ahaan dalka Thailand, balse marka uu xilka qabtay boqor Bhumibol, qaab nololeedkiisa ciyaarta ah iyo iibsashadiisa raaxada xad dhaafka ah ayaa dadka reer Thailand ku qasabtay guux ay kaga soo horjeedaan nidaamka boqortooyada, isla markaana ay ku doonayaan nidaamka dimuqraadiga ah. Tusaale, boqor Bhumibol marka uu dhintay aygiisii ugu dambeeyey, waxaa qasnada dowladda laga saaray lacag gaaraysa dhowr milyan oo dollar, taasi oo lagu qarash gareeyey aaska meydka eyga oo socday muddo 4 maalmood ah. U dambayntiina sanadkii 2016 ayuu dhintay boqor Bhumibol oo dalkaasi xukumayay 1996 ilaa 2016. Kaalinta 5aad waa qoyska Windsor, qoyska boqortooyada dalka Ingiriiska. qoyskani waxa ay maamulaan hanti gaaraysa 88 bilyan oo dollar, una badan hantida maguurtada ah oo ku taala gudaha Ingiriiska. qoysku waxa uu leeyahay hanti adduun oo maguurto ah gaaraysana 10 bilyan oo dollar, ayna ka mid yihiin daarta weyn ee Windsor Palace iyo sidoo kale qasriga Buckingham. Marka laga hadlayo qoysaska boqorrada, waxaa iska caadi ah inuu ugu hanti badnaado boqorka xilka haya, balse boqortooyadani way ka duwan tahay. qofka ugu hantida badan qoyska Windsor weli kuma fadhiisan kursiga boqortooyada dalka Ingiriiska. Amiira Carlota oo weli ku sugan da'da 6 jirka ayaa haysata 10% hantida qoyska, waana 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Ku darso, qoyskani waxaa loola dhaqmaa sida qoys boqortooyo ah, balse ma arki doontid iyaga oo muujinaya hantidooda uma dhaqmaan sida qoysaska kale ee dhigooda ah. Kuma xarakoodaan gawaari dahab ah. sidoo kalena malahan maraakiibta dagaalka ee isu beddela doonyaha raaxada. malahan garoomo waaweyn oo loogu ciyaaro iyada oo la qaadayo Allaha xafido boqoradeena. Kaalinta 4aad waxaa jooga qoyska Al Nahyan ee Abu Dhabi. qoyskan oo uu hogaamiyo Sheekh Khalifa bin Zayed Al Nahyan waxa uu ku fadhiyaa hanti gaaraysa 150 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Sida aad qiyaasayso, isha ugu weyn ee dhaqaaluhu ka soo galo qoyskan waa ka ganacsiga saliidda. qoysku waxa ay leeyihiin dhowr hotel oo 7 stars ah, iyo sidoo kale dabaqa adduunka ugu dheer waa Burj Khalifa kuna yaala magaalada Dubai. qoyska Al Nahyan kuma noola guri caadi ah, balse waxa ay ku nool yihiin qasriga Al Waddan Royal Palace oo ah qasriga adduunka ugu weyn. Waxa uu ku fadhiyaa masaafo la yaab leh, taasoo gaaraysa 83,000 oo mitir isku weer ah. gudihiisa waxaa loo dhammaystiray wax kasta oo caalamka looga baahan yahay, waxa uuna ku fadhiyaa hanti gaaraysa balaayiin dollar. Marka aad aragto baabuurta, diyaaradaha iyo doonyaha qoyska boqortooyada Abu Dhabi, waxaa hubaal ah inaad garan doonto qaabka ay u nool yihiin dadka Alla wax siiyey. Kaalinta 3aad waxaa ku sugan qoyska reer Saani ee Qatar. Al-Sheikh Tamiim bin Hamdan daadiisu waa 41 sano jir, waana boqorka ugu daada yar boqorrada xilligan. haddana waxa uu hogaamiyaa qoyska 3aad ee ugu hantida badan caalamka. hantida qoyskan waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayso 335 bilyan oo dollar. isha dhaqaale ee ugu weyni waa dhoofinta shidaalka. sidoo kale qoysku waxa ay hanti maguurto ah ku leeyihiin boqortooyada Ingiriiska. waxa ay sheer ku leeyihiin dhismaha Empire State ee magaalada New York. qoyska Al Saani waxay maalgeliyeen warshado muhiim ah, waxa ayna saami ku leeyihiin warshadaha soo saara gawaarida sida warshada Volkswagen, Barclays iyo Tiffany. qoyskani waxa uu degan yahay qasriga boqortooyada oo ku yaala magaalada Doha. Al Saani waxa ay balaayiin dollar ku bixiyaan qaab nololeedkooda, waxa ayna ku xarakoodaan diyaarado iyo gawaari kala nuuc ah. Kaalinta 2aad waxaa fadhiya qoyska reer Sabaax ee Kuwait. qoyskani waxa ay dalka Kuwait xukumayeen muddo 300 oo sano ah. hantidooda waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayso 360 bilyan oo dollar. amiirka wakhtigan ee qoyskuna waa Sheikh Sabaax Al Ahmed Jaabir Al Sabaax. inkasta oo qoyskan ishooda dhaqaale ee ugu weyni tahay dhoofinta shidaalka,
haddana waxaa jira ganacsiyo istaraatiiji ah oo ay ku leeyihiin daafaha caalamka sida Maraykanka iyo waddamo kale. Qoyskani waxa ay caan ku yihiin noloshooda heerka saraysa marka loo eego qoysaska kale. Waxa ay sidoo kale ku caan yihiin ilaalinta hiddaha, iyaga oo dhidibada u taagay xarunta dhaqanka oo uu kaga baxay qarash gaaraya $775 milyan oo doolarka Maraykanka ah. Kaalinta koowaad waa qoyska reer Sacuud. Qoyska boqortooyada dalka Sacuudiga. Qoyskani waa qoyska ugu hantida badan dhammaan qoysaska boqorada caalamka. Hantidooda waa adduun gaaraya $1.7 trilyan oo doolarka Maraykanka ah. Tani maaha mid qarsoon. Dowladda Sacuudigu waa mid ka mid ah dowladaha ugu dhaqaalaha badan caalamka. Inkastoo ay aad u badan tahay $1.7 trilyan, haddana waxa ay u dhexaysaa 15,000 oo xubnood oo qoyska ka mid ah. Qoyskani waa qaar xariifiin ku ah ku noolaanshaha dabaqadda sare ee nolosha. Shayguba hadduusan dahab ahayn kuma jiro waxyaalaha ay daneeyaan reer Sacuud oo qashinka ayuu ula mid yahay. Waa qoys ku xarakooda gawaari iyo doonyo dahab ah, alaabta gurigu xitaa waa dahab. Waxaase la yaab leh in qoyskani ay haystaan baaskiilo dahab ah. Hantidooda kaydka ah maaha wax la qiyaasi karo, waxa ay si hanti ma guurto ah ku leeyihiin dalalka Faransiiska, Ingiriiska iyo caalamka intiisa kale. Qoyskani waxa ay qiimo sare ku bixiyaan wax kasta oo ay xiiseeyaan. Marka la eego iibkoodii ugu dambeeyey waa 2 sawir oo qadiimi ah, gaarayana daada 500 oo sano. Waa sawirrada Leonardo da Vinci iyo Salvador Mundi. Qoysku waxa uu ku bixiyey iibsashada labadan sawir adduun lacageed oo gaaraya $450 milyan oo doolarka Maraykanka ah. Lama garanayo sababta uu qoys Muslim ah waxaas oo lacag ah ugu bixinayo helidda 2 sawir oo Kirishtaan ah. Waase su'aal uu qof kastaahi isweydiin karo, qiyaasteeduna waa inay ka wadaan maalgashi oo sawirradani ay noqon karaan kuwa intaa ka sii lacag badan. Kuwani waa 10 qoys ee ugu hantida badan caalamka. Qoyskee kugula yaab badnaa? nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga muuqaalka, like saar, siina sheer garay. Mahadsanid.